رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية وفد بلارن وهogaaminayo ay kamid yihiin xubnaha golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa galabta galinkii dambe soo gaaray xarunta ku meel gaarka ee Jubbaland magaalada Kismaayo. Wajidada ra'iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada u yimaadeen magaalada Kismaayo ayaa in shirka khamiislaha ee golaha wasiirada lagu qabto markii ugu horeysay magaalada Kismaayo waxaana qayb ka tahay qorshaha lagu daadajinayo dawladnimada isla markaana dadka gobolada lagu geynayo dawladda federaalka Soomaaliya si warkaan dawladooda isla mar ahaantaana ay ula wadaagaan waxay hayaan oo xog ah. Wafdiga ra'iisul wasaaraha ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo si weyn ugu soo dhaweeyay madaxweynaha Jubbaland, madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada reer Kismaayo. ra'iisul wasaaraha waxa uu salaan ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed isagoo dadkii soo dhaweeyay oo u badnaa dhalinyaro iyo haween mid u salaamay. waxayna dadka reer Kismaayo dareemayaan neecaw dawladnimo maadaama dawladda federaalka Soomaaliya hay'adda ugu muhiimsan ee laanta fulinta Jamhuuriyadda Soomaaliya ay ku hoyanayaan caawa magaalada Kismaayo. soo dhawaad kadib madaxweynaha Jubbaland iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa shir jira si wada jir ugu qabtay garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo. madaxweynaha Jubbaland ayaa aad u soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha iyo xubnaha golihiisa wasiirada wuxuuna wax lagu farxo ku tilmaamay in markii ugu horeysay golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya shirkooda caadiga lagu qabanayo magaalada Kismaayo. taasoo muujinaysa midnimada dawladnimada isku xidhnaanta matalaadda iyo dawladdu ciday dawladdu tahay inay qaaxanaato cadaato. waan ku soo dhaweynaynaa gobol furan oo fiican ficlanna waa meel waxay iyagu leeyihiin wax hadday marti ku yihiin maa cidna marti uma ah. dhulkii ra'iisul wasaaraha ka ahaa buu yimid shaqadoodii ay lahaayeenna way qabsanayaan. haddii loo ijaamaadiyo haddii la qaadiyo wallaahi shukr cala alwaajib shaqadoodii bay qabsanayeen. waxaan leeyahay ra'iisul wasaare ku soo dhawow caasimadda ku meel gaarka ah ee Jubbaland oo diyaaradiina adiga iyo kabinetkaaga iyo golaha wasiirada soo dhaweeyaan si aad waajibka qaran ee gudataan. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre oo isla dhinaciisa la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in qayb ay ka tahay qorshaha dawladnimada lagu daadajinayo shirka golaha wasiirada lagu qabto magaalada Kismaayo isagoo xusay in dadka Soomaaliyeed iyo dhammaan madaxda kala duwan ee dawladda qaybaheeda kala duwan looga baahan yahay inay u midoobaan sidii wadankan loo gaarsiin lahaa horumar. waqti la ismucaarado waqti dawlad goboleed iyo dawlad federaal loo kala saaro. maanta dadka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin madax Soomaaliyeed oo gacmaha isqabsada, madax Soomaaliyeed oo hadafkoodu uu yahay sidii ummadda Soomaaliyeed loo badbaadi lahaa. dadka Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa inay garab istaagaan. maalmahan waa idinla joogi doonaa. aad ayaan ugu faraxsanahay joogitaanka farxadda iyo raynraynta lagu soo dhaweeyayna waxay nagu sii dhiirigelinaysaa inaan sii dardar gelinno niyad wanaaggii iyo shaqooyinkii aan shacabka Soomaaliyeed u helno. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa go'aansaday in xubnaha golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya lagu qabto shirarkooda meel ka baxsan caasimadda Soomaaliya Muqdisho si dadka gobolada ay u arkaan dawladnimadooda isla mar ahaantaana meesha looga saaro in shacabka gobolada ku nool ama iska dhaadhiciyaan in dawladdu ay